hooyo Ikraan waxay isku dayday in ay darawal ka noqoto gawaarida yar oo ay adeegsadaan dadweynuhu kuwaas oo loo yaqaano tagaasida. waxaan shaqadan bilaabay bishii hore adinka kama hadda waxaan ayaa gabadh socota wallaahi weyla yaabin gabadh taxi wadato aada la yihiin la yaabin taxi u noqotay fikrada maxaa aniga waxaan ku fikrada waxaan ku keenay inaan dad badan gabdho badan oo jaamacadaha dhameeyay dunida ay fadhiyaan oo dhaayan shaqaan u raadinayna xafiiskan u raadinayna waxaan u raadinayna in gabdhuhu ila shaqeeyaan gabadhooda inay taxi jooga anaa soo dhaweynayo laakiin waa gabdhaha waa rabnaa shaqo abuur u sameeyno. hooyo Ikraan waxay sheegaysaa inay dumarka ka helin dhiirigelin badan walow ay mararka qaar niyad jabiyaan balse waxay BBC u sheegtay inay mararka qaar ay raggu ay isku dayaan inay la haasaawaan balse waxay u sheegtaa inaanay baabkaasi ay ku jirin oo haatan ay u caddahay shaqo. maya ragga iyo dumarka ragga macaamil fiican sidaan hadda kuu sheegay maxaa yeelay raggu ma laha shaqaasninkii waa ku raacaya lacag xadidan intaas lacagtii okay waa ku siinaya haddii markaa jikada kaansi gaaban lagula gelaya kudhaaya maya hadda shaqaa ku jira shaqadaas shaqo kale ma geli karo kuwaa kudhaaya gaari makaani maayo makasena guri maku dejina mayo aan kuri aniga ilmaa layahay hooyo ilma u joogaanahay ma u baahanin intaygu waa joogaa laakiin baan dhahaa dee marka raggu xagga raggu waa iska kastamaya boqolkiiba lixdan ama dumarku kuwa xigdayaan oo kugu faraxsana kuwa inta u tago oo markay wacaan waxay ku dhahay anaa naag iskuma aamini karno intaan kuu moodeynay dib ma lahabaan ku dhahaa waxyaalo badan baan niman baa waxaan macani dhahaa wallaahi waa ku faraxsannahay aad baan ku faraxsannahay maxaa yeele gabadhna kaxaynaysa seefikeedu waa aad bay u dhowey aad bay noo ordeen waxay u kadhisay waa baahida loo baahan yahay dadkan wax gabaran gaari aan wadin aan lahayn way wadaan laakiin dadkii wax ku shaqaynaya lama arkin aniga ugu horeysa. hooyo Ikraan waxay nolosha qoyskeeda ay ku dabirtaa shaqadan ay hadda qabato iyadoo sheegtay inay maalintii qutuliyankeeda ay ka soo xareyso gaarigan ay darawalka ka tahay. walaal dhaqaale fiican waa iga soo galaan iyadii dhaqaale iga soo galay $1 inkastoo ay sheegtay inay la kulanto caqabado kala duwan haddana sidee ayay ugu suura gashaa inay isku wada qabato shaqada qoyska iyo tan ay bulshada dhexdeeda ka qabato maxaase Ikraan ku dhaliyay inay shaqadan qabato iyadoo heli karta shaqooyin ka fudud ama ka sahlan ayaan weydiinay. walaal mas'uuliyadda reerka waxa weeye saacado ayaan ka shaqeeyaa sida halka arrimo ayaan shaqada soo galaa inta ka horeysan guriga iyo ciyaalka qaar ba iskoolka aan nadaamiyay iskoolka u kala diraa salaada duhur oo kale faamilkana way caawinaan oo hooyo iyo aabba iyo walaal iyo marna ninka guriga dhinaca ka sii hayo faamilkana way caawinaan laakiin 12 kan u imaadaa afar toona waa shaqo gala saacadaha hadda shaqaan ku jira. hooyo Ikraan waxay ka shaqaysaa magaalada Boosaaso oo ah magaalo saxmad badan dhanka wadooyinkan ay yihiin kuwo xiriira